Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qoyska ugu awoodda badan caalamka, Rothschild Guild Family. Waxaynu noolnahay xilli dadka ugu caansan caalamka ay yihiin dad ka soo muuqda muuqbaahiyayaasha caalamka, ha ahaadaan kuwa heesa, kuwa inoo akhriya, kuwa dadka madadaalisiiya, ama kuwa diin inoo sheega. Taasina waxaa sabab u ah warbaahinta iyo tiknoolajiyadda maraysa meeshii ugu sarreysa abid. Laakiin daawade, mala socotaa inay jiraan dad amase qoys caalamkan maamula, gacantana ku haya hantida ugu badan caalamka, haddana aan mar qudha ka soo muuqan warbaahinta horteed, xataa meelaha lagu qoro dadka hantiilayaasha ah sida Forbes, jaraa'idka ugu caansan ee lagu qoro dadka hantiilayaasha. Muuqaalkan kooban waxaynu ku soo qaadan doonaa qoyska ugu qanisan uguna awoodda badan caalamka, gacantana ku haya hantida caalamka taala laba meelood meel, uguna cimriga dheer marka la eego ilaa xilliga uu rikoodhkan hayay. Rothschild Guild Family waa qoys Yahuudi ah, asal ahaan ka soo jeeda dalka Jarmalka. Magaca qoyskan ayaa macno ahaan noqonaya gaashaankii casaa. Rothschild Guild Family ayaa ah qoys qarsoon si hoosena u maamula caalamka oo dhan. Waxa uu leeyahay hantida ugu badan ee caalamka. Awoodda qoyskan uu ku yeelay caalamka ayaa loo anaaneeyaa inay keentay hantida xad-dhaafka ah ee qoyskani gacanta ku hayo oo qiyaastii ahaan gaadhaysa ilaa 50 trilyan. Laakiin waxaa hubaal ah inay intaasi tahay oo keliya intay soo bandhigeen, walow way jiraan hantida aad u badan ayna soo bandhigin. Taariikhda kooban ee qoyskan, Mayer Amissagel Rothschild Guild waa aabihii aasaasay qoyska Rothschild Guild Family. Waxa uu ahaa nin baankar ah ama bangi iska leh. Sidoo kale waxa uu ahaa ninkii aasaasay International Finance. Lixdamaadkii qarnigii 18aad waxa uu bilaabay Mayer Amissagel Rothschild Guild inuu u qaybiyo 5tiisa inan ama 5tiisa gabdhood bangiyada ugu waaweyn caalamka, marka ay ku kala yaalay London, Paris, Vienna, Naples iyo Frankfurt. Qiyaastii 1960kii waxaa lagu qoray jariiradii lahaayeen Yahuudu in Rothschild Guild Family ay leeyihiin shirkado badan oo mataano ah misena magacyo badan leh sida Breeries, Seligmanis, Lazardis iyo kuwa kaloo badan. Qoyskan ayaa loo aqoonsan yahay qoyska ugu hantida badan uguna waqtiga dheeraa, iyadoo jilib usii gudbin jiray hantidan baaxadda leh. Siyaasadda ay reerkani isticmaali jireen ayaa ahayd inay amaahiyaan dowladaha caalamka lacag halkii amaahi lahaayeen dadka, taasoo u midho noqotay mid ay ka helaan kalsooni iyo dulsaar baaxad badan. Howlgallada qoyskani uu ka fuliyo daafaha caalamka waxaa ka mid ah, maadaama aabbahani qoyskani uu ahaa aasaasaha habka bangiyada caalamka, tani waxay u suuragelisay inay howlgallo maaliyadeed ka fuliyaan meelo badan oo caalamka ah, sida inay ka qayb qaateen dhiskii Suez ama kanaalka Suez, iyagoo lacagta ugu badan ee lagu dhisay kanaalka laga amaaday bangiyada qoyskani ku lahaa London iyo Faransa. Sidoo kale qoyskan wuxuu si toos ah ugu lug lahaa madax-bannaanidii dalka Brazil ay ka qaateen dalka Portugal horaantii qarnigii 19aad. Heshiiskii dowladda Brazil ee la gashay waddanka gumaysanayay ayaa dhigay inay bixiso canshuur dhan 2 milyan oo pounds ah. Nathan Rothschild Guild oo ka tirsan qoyskii reer Rothschild ayaa bixiyay lacagtii 1823 dulsaar dhan ka faa'iiday 500,000 oo pound. Dhinaca Mareykanka, shirkadaha ugu weyn ee dhinaca biraha ee dalkaasi, qoyskani ayaa ku lug lahaa, iyagoo qaatay qandaraasyadii ugu waaweynaa ee lagu dhisay waddooyinka xadiidka lahaa ee dalka Mareykanka laga dhisay bartamihii qarniyadii 19aad. Qoyska Rothschild Guild waxa uu olole ballaadhan u galay helidda dhul Yahuudi u yeelato, iyagoo cadaadis ku saaray dowladda Ingiriiska ee UK inay si degdeg ah uga baadi doonto meel ay Yahuudu degto. Ugu dambeyn waxay ku guuleysteen inay Falastiin degaan, iyadoo dhammaan lacagtii ku baxday
dad guryahoodii iyo raridoodii dadkii Yuhuudda ahaa ee degnaa daafaha Yurub ay bixiyaan qoyskani sidoo kale ay hubiyaan dadkii Yuhuudda ahaa in la dejiyey xaggaasi oo si sharci darro ah loo siiyey dhulkaas oo waa dhul si sharci darro ah loo siiyey. Bangiyada iyo hantida kale ee qoyskani ku leeyahay waxaa ka mid ah inta ugu badan bangiyada caalamka waxaa iska leh qoyskan dal kastaba ha ku yaalaane. Waxaa kale oo qoyskani leeyihiin shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara khamriga sida Kuwachim Moche Roses Gilde iyo Kuwachim Lefetit Rothiers Gilde oo fadhigoodu yahay dalka Faransa. Sidaasi la mid ah qoyskani ayaa leh saamiga ugu badan ee Federal Reserve Bank, bangiga keedka oo ah dalweynaha Mareykanka, sidoo kalena amaahyada ugu taanka weyn dalkaasi bixiyana awaamirta daabacaadda lacagta doolarka. Awoodaha qoyskani ku leeyahay caalamka ayaa keentay inay jaangooyaan asxaarta qiimaha dahabka caalamka. Qoyskan ayaa sidoo kale leh kanaalka ugu caansan ee dalka Mareykanka ee CNN TV iyo wakaaladda Reuters. Ugu dambeyn, meeshii ugu dambeysay ayaan soo gaarnay. Qoyskan Rothiers Gilde Family ayaa loo tixgeliyaa inay gacanta ku hayaan inta ugu badan hantida caalamka, sidoo kalena inay si sir ah u maamulaan caalamka una ilaaliyaan danaha Israa'iil. Waxaa si cad loo ogyahay in ay gacanta ku hayaan dhammaan lacagta dalweynaha Mareykanka. Walow aanay shaashadaha caalamka ka soo muuqan, haddana waxaa maragmadoon ah inay maamulaan inta badan wadamada reer galbeedka. Dadka dhaliila qoyskan ayaa sheegay in qoyskani la shaqeynayeen Satan ama Shaydaan, maadaama xafladaha ay qabsadaan ku dhigtaan meelo qarsoon, sidoo kalena ay ku qurxiyaan guryahooda waxyaalo aan caadi ahayn sida madaxyo, geeso iyo midabo aan caadi ahayn. Magacayga waa Cabdullaahi. Okay, halkan waa kanaalka dunida.